maalin wanaagsan saaxiib waxaan rajaynayaa inuu waqtigu ku wacan yahay meel walba oo aad ku sugan tahay waxaan maanta rabaa inaan kula wadaago buugga sahmin qoto dheer oo ku saabsan dabeecadda aadanaha baraadka iyo luuqadda ama A Deep Exploration of Human Nature, Language and Consciousness ee uu qoray Noam Chomsky. waa buug ku dhex socdaalaya 3 mowduuc oo isku soohan oo kala ah 1 waxa ay tahay dabeecadda aadanuhu 2 aasaaska biolojiyeed iyo midka garasheed ee afka iyo 3 sirta qarsoon ee wacyiga ama baraadka ama consciousness. isagoo ka faa'iideysanaya 10 sano oo cilmi baaris afeed mid falsafadeed iyo aqoonta sayniska neerfaha ah ama neuroscience ah waxa uu buugu ka hor imaanayaa mala awaalka ku aadan waxa uu dadku kaga duwan yahay noolaha kale sida afku u muujiyo mar kalena u bedelo fikirka iyo sababta uu wacyigu wali u yahay arrin aan cilmi ahaan si buuxda loo fahmin. waxa uu buugu isku xirayaa doodihii falsafadeed ee waayadii hore iyo cilmiga garashada ee casriga ah isagoo bixinaya aragti qoto dheer oo ku saabsan sida ay isugu tolan yihiin maskaxda afka iyo dhaqanku. waxa buuggan qoray Noam Chomsky. Chomsky waa afyahan, waa filosof, waana saynisyahan garasheed oo ay waxqabadyadiisu wax weyn ka bedeleen diraasaadka afka. aragtidiisa naxwaha la dhaliyo ama generative grammar waxa ay dib u qaabaysay aqoonta afka ee casriga ah waxa ayna door u siisay isaga inuu noqdo mid ka mid ah fikirayaashii ugu saameynta badnaa qarniyadii 20aad iyo 21aad. marka laga soo tago majaalka aqoontana waxaa kale oo Chomsky si weyn loogu yaqaanaa qoraaladiisa siyaasadeed iyo faalooyinka ku aadan arrimaha bulshada. buukoobkan iyo kuwa la mid ahba waxaad ka heli kartaa abka buukoob kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka kororso aqoon goor kasta iyo goob kasta.